Shiinaha iyo Ruushku waxay ahaayeen xulafadii ugu weyn ee ku tashanaysa Iiraan inay difaaci doonaan haddii ay soo weeraraan Maraykanka iyo Israa'iil ama xulafadiisa kale. Balse maalintii labaad ee weerarka gardarrada uu Iiraan ku socdo, labadaas dal ee Ruushka iyo Shiinaha labada midna ma muujin ficil ah inay ka hortagayaan ama ay joojinayaan weerarka gardarrada ah ee lagu wado xulafadoodii ugu weyneyd ee bariga dhexe oo ah Iiraan. Iiraan iyo waxay ka tirsan tahay Iiraan xulafada BRICS ama gaashaanbuurta BRICS oo ay horboodaan labada wadan ee Shiinaha iyo Ruushku. Dad badan waxay u dhigayeen markaa in xulafadaas ama gaashaanbuurtaas BRICS ay noqon doonto mid u dhiganta gaashaanbuurta NATO amaba ay tahayba xulafo u dhigmaysa ama hor istaagi karta gaashaanbuurta NATO. Balse waxa muuqata iminka in ururkaas ama gaashaanbuurtaas BRICS ay fashilantay oo fashil cagaha la gashay maadaama oo ay difaaci kari weyday xubin ka mid ah ururka oo weerar gardarra ah u soo qaaday Maraykanka oo wada xulafadiisa kale Israa'iil. Marka Maraykanka ma hor istaagi karaan Shiinaha iyo Ruushku marka ay noqoto fool ka fool ama markay xabad tagto labada dal kuma aadaan oo ma hor istaagi karaan. Laakiin marka ay hadal noqoto labada dal cid walba iyaga ayaa ka soo horeeya. dhacdadani waxay dib inoo xasuusinaysaa tantii la midka ahayd ee ka dhacday Venezuela, dalka Venezuela. Shiinuhu wuxuu in badan dhegta ugu reeyay madaxweynihii Venezuela Maduro inuu difaaci doono haddii uu Maraykanku uu soo weeraro. Laakiin markii ay runtii timaaday oo Maraykanku uu seefihiisa soo qaatay uu soo duldhigtay Venezuela, Shiinuhu gacmaha ayuu ka taagtay. wuxuuna ku guuldaraystay inuu difaaco xulafadiisii ugu weyneyd ee gobolka Latin America uu ku lahaa. waa taata keentay markaa in Maraykanku uu aad yar soo jeebeeyay madaxweynihii dhamaa Venezuela oo soo qaato kabacdi uu la yimaado dalkiisa. markaa Shiinaha iyo Ruushku ma laha saaxiibtinimo la isku halayn karo 100%. oo intay been kuu sheegaan ay ku dhahdaan waan ku difaacinahay markay runtu timaado ay cidla kaaga dhaqaaqayaan. Ruushku taariikho hore oo ku saabsan arrimahaas ayuu leeyahay. wuxuu meel cidla ah kaga dhaqaaqay xulafadiisii ka mid ahaa Qadaafi, Allahu naxariistay, tii Ciraaq, Saddam Xuseen. been buu sheegay, wuxuu ku yidhahdaa anigaa ku difaacaya, Maraykanka kaa difaacaya. laakiin maalintii Maraykanku uu soo qalab qaatay Saddam Xuseen iyo Ciraaq, gacmuhu ka taagtay Ruushku iyo halkaasuu ka maray. saas lamida ayuu ku sameeyey Liibiya. markaa labadaas dal laba dal oo xulafadooda la isku halayn karo ma aha.